أنا أصحابي كسر وده جنكي مركل وأنا وشعب الصغر ورجعنا كي دعونا سنة وشعب نور برا فضل جنك تاكو عصبت هاي سبسكرايب تصاروا مع سنت هاي فيديو اللي صار فواحد يعني الشيء إن أكو صدر دونه برامج كلا أم شو كلا أو جرب صعدة ذا مارو شو طبعا برامج أنا يوجي برامج كي يوجي أنا وحوا هاي شو اللي هذا جيري سبرينجر أما جيري شو يعني كل جيري شو أنا أسكره هنا haddana waxaan arkay dad hal iyo laba ilaa saddex qofood in ayakana ay dhaheen mataqaanaa aan showgaas noo soo mataqaanaa reaction ka soo sameey ama noo soo turjin marka barnaamijkeeni The Mauro Show maanta wixii ka dambeeya waxaa garab socon doona si official ah barnaamijka The Jerry Show waxaan sameyn doonaa inaan mataqaanaa aan isku dheeli tiro The Mauro Show waxa uu marayaa 6 insha Allah kana waxaan jeclaystay maanta inaan ku bilaabo videogii ugu horeeyay marka videogeena maanta waxaa marti noogu ah laba gabdhood iyo wiil labada gabdhood wiilka waxa ay kala yihiin mid waa uu la socdaayo saaxiib uu leeyahay waxa uu sheegeen inay 6 sano wada socdeen gabadhuna ay gabar yar ay joogto cunug yar laakiin cunugaas ma oo soo dhalay wiilka waxa dhacday wiilkii markii inuu gabar kale oo ka barto online xagga iyo Facebook inuu ka barto ka bacdina muddo 7 bilood ah ay wax isku qorayeen video isku dirayeen calaashameeyaas jacayl oo ka abuurmay marka barnaamijka maanta waxa lagu marti qaaday gabadhaas iyo wiilkii iyo gabadhii kale waxa isku ahay calashaan dadkan 7 bil wada socday wali ma aysan is arkin markii ugu horeysay way showgan isku arki doonaan markii ugu horeysay marka meesha waxa lagu balamiyo oo kale gabadhii kale oo wiilka 6 sano la soo socday marka saddexdoodii meesha ku kulmi doono si live ah barnaamijkana waxa uu xiis u leeyahay mataqaadii naagta ama nin faca aad mataqaana aad maar u weyd ay isku feeraysin ciyaarta albitra ku dhex jiro marka aan wada fiirino barnaamijkan soo u dhaco ninka yaa lahaan doono qoftee lagu cuni doonaa jacaylka Facebook jacayl Jeremiah kulleeto barnaamijka waxa u dhaxeeya jacaylka dhabta ah iyo jacaylka online ka keeray doona aan isku fiirino videoga hadda bilaabeena play not on our show. Okay, so what I'm going to ask you to do is I'll have you leave the stage now. I'm going to bring her out and hear what she says, and yeah, then we'll bring you back out. Okay? wuxuu yiri adiga hadda meesha ka kac gabadhii kale ee online ka laga bartay ama meesha la soo fadhiisina aan dhageysano bal waxa ay tiraahdo yiri dadka in qof kasta oo qol ku jira la isma ogo dadka qaar way is og yihiin laakiin dad aan wali is arkin wiilka kale iyo gabadha kale isma aysan arkin wali So let's meet this other woman. Here is Dominique. gabadhan waa gabadha ka bartay online ka wiilka oo 7 bilood oo online laga shaqeysanayo jacaylka adduunkana ka jiro laakiin I don't know inay og tahay in kale ninkan inuu gabadha kale oo la socdo 6 sano ay wada socdeen Nice to meet you. All right. This is a strange story as I understand it. You've been texting this guy or... Yes, I've been. So I'm actually here today to meet this guy named Brian. wuxuu yiri sheekada la yaab la waa calishan wixii warkii fahmi lahaay waxa ay tiri meeshan waxaan u imaaday maanta inaan la kulmo wiilkaas calishan hore isku ma arkin relationship for 7 months. Yeah. And I'm here to meet him for the first time, you know. waxay tiri 7 bilood aan xiriirkan u wada socday xagga online ka marka maanta waxaan u imaaday inaan markii ugu horeysay aan aragno Like our relationship started on Facebook. Yeah. He inboxed me and like I tried to like get him to video chat me because I didn't want him to see. Facebook aan iska baranay marka videoyaal isku diray dadka qaarna qoraal ku sheekaystaan laakiin la sameeyay real life laakiin marka video ii soo duub video aan ku soo duubo muuqaalo oo la isdhaafsado mataqaana ama video call lagu wada hadlo waxay ka caawinaysaa labadaas qofood inay ogaadaan qofkan waxa dhabta uu yahay iyo qofka kale waxa uu yahay fake. And when he did it's like from there we just went off like we started texting every day, talking every day. We were supposed to. qoftan maan alla keeno mataqaana asla haleynay wax isku soo qoreynay calashan kale lab jacaylka adduunka qofti kalena waa maqluusa qolka ku jirta to just remain friends until we actually decided to meet because he lives in Atlanta and I live in Texas. marka saaxiibaan mataqaana aan ku wada ahaynay tiri ilaa markii dambe aan ku aansan inaan wada kulanno laakiin saa ay sheegto waxay ku kala noolaayeen laba magaalo ku kala noolaayeen And he's told you that he has a girlfriend. No. ma ku sheegay la yiri in oo girlfriend leeyahay qof inuu la socdo ku sheego may tir Well, you contact. Who did you contact? What happened was
So one day I was talking to Brian and he made this Facebook post about me saying like I'm his woman crush and basically telling everyone how in love he is with me. Oh, okay. And you know, there was a bunch of comments on it like, oh, she's so perfect, y'all make a perfect couple. And then this waxay ka sheekeynaysaa علشان wuxuu yiri ila ninka wuxuu ogyahay dadka interview ka soo qaaday moogtahay wax way jiraan like qoftaas girlfriend ahaan qoftaan uma aaminsanaysaa warka uu fahmay marka waxay tiri waxa dhacday maalmaha kamid in Facebookiisa uu ku soo galiyay wax asagoo masawira waa qoraal labadooda qoseeyo marka dadka qoraalka waxay leeyihiin tiro isku qurxantiin waa isku nuureysiinsan waa isku soo bixiyeen wax noocaas one comment with this girl named Alexis on it like her comment said is this for real and like she seemed shocked and then commentiga marka comment kamid ahaaya waxa علشان qof ku soo qoray waxaan runmiya oo kale علشان shock ku noqdo qof wixii shock ku noqdo kale amal oo ahay qofkaasi dhaaday marka qofkaasi sheekadiisa noo wada she inboxed me and she was like is this for real and I was like why are you coming at me like I should be coming at you like qoftaan si private inta lagu soo qoray leeyahay waxaan runmiya علشان gabadhaana ayada barbitay inay ogaato qofkaas way sidaas ugu shogsay arintaas ayada rabtay inay raadiso marka qoftan waxay la yaab ku noqotay waxa la yaab ku noqdo qoftan in qoftiiba ayada ay soo raadiso leedahay waxaan maxaa ka jooga waxaan runmiya ama soo ciyaar like why are you asking me this and she was like I've been dating Brian for a while and I was just like what's a while I've been with him 7 months and she's like qofta kale marka waxay u soo qortay oo hebel ninkii asaga ahaa muddo aan wada soconaay u soo qortay qofta waxay tiri marka aniga 7 bilood aan wada soconaa anigana meesha sheekayara ka furmat and I was just like okay and then she started waxay tiri marka qoftaas aniga 7 bil ka badan la socdo علشان while markay tiri wax badan la socdo mish xilli specific mish qofta marka 7 bil iska soo jartay qofti kalena waxay tiri ka badan la socdo علشان adigu waa ka horeeyay saying things like I'm his first love and then like children got involved but they're not his but they warka waxay si raacisay tiri علشان aniga waxaan jecelkiisi ugu horeeyay علشان ilmaha isku haynaa laakiin ilmaha asaga ma uusan dhalin dad and things like that and it just really just took me to a point where I just went off and so I made this post qofta marka waa yaabto waxay علشان ku aansan rabto in علشان sheekada ka dhax baxdo why would you even want to start a relationship if you know he's got another woman in this su'aal aad u muhiim ah la weydiiyay waxa la yiri maxaad adiga u rabtaa inaad ninkan xiriir la sameeydo hadaad ba hore u ogeed in ninkan oo qof la socdo kale like you could be his wife well that's like he's not really they're not really married yeah. like it's just like wifey it's like a nickname علشان كلمته waxay raacaysaa علشان husband iyo wife amal oo kale oo raaciyay booska uga dhax gala marka waxa ay tiri علشان sheekada wife ma qaban ninkan naagta husband iyo wife isku ahan علشان waa isla socdaan oo kaliya type thing okay but let's assume they have a relationship yeah but like it's ninkan wuxuu leeyahay adiga iska dhaaf waxa ka soo qaad dadkan xiriirab ka dhaxeeyo adiga marka maxaa isu dhax galay the point where like she's not his first love and she needs to know that so you want qoftan waxay taagan tahay qoftan jecelkeedii information soo ogaatay qoftaas jecelkiisa ugu horeeyay ma ahan ay tiri marka inay ogaatana waa taas micnaheedu waxa ay tahay gadaal ay ka imaat marka anigana gadaal waa ka imaan karaa qofta caadi ma yeah but you've never really met him no I plan to and you're going to meet him علشان dadkan dad hore isku arkana ma ahan jecelkooda halkaas u gaarsiin yahay marka ninkan waa leeyahay now yes okay his name is Brian here you're going to meet him now here's Brian hadda soo galay la yiri maadaama hore uu isku arkin hadda uu soo galay ninkii Brian loo waxa marka yarkan ma oga oo maleena qoftiisi kale inay joogto qoftiisa isku socdaan habab dhisiiba jacaylka adduunka qoftii kale qol kale ugu jirtaa war sheeko wala meesha ka socoto wala qoftii waa ooynaysaa waa la isku dhagan yahay qoftii kale saanay ku wax ma aragto dhagti ka dhageysanaysaa بسم الله أنا والله قرع مويا ماشي عم حكي صوص عضوا يا بنات sorry How you doing, Brian? Nice to meet you. No, this is a lovely reaction. ورقفتي وإنه زانين كان اللوف الرياكشن وايو تاني علشان ما فيلين إن جعلك أنت لك قبل إن ده وجدين اللي أنا كسرته
marka jacayl Facebook kulli daragii sameyn jiraa yaqaanee online saa in iskaga jeclaado waa muu maleynay sheekadana hadda qofta maadaama ay dhaxtaal ay soo dhexgalayday waxaas iyadoo og waliba ay soo dhexgalayday qof qamarji oo haystay qofta oo inuu daaminis ninkan sahal ma kulumin karto qoftii waa war sheekada in kala dhaxbayso What do you want to say to her? wuxuu yiri markan qoftan maxaa rabtaa inaad dhahdid marka maxaa ku dheelayd qoftii maadaama hadda as aragteen I want to say, Dominic, is I'm sorry for everything that I did to you. I'm sorry for hurting you. I'm sorry for letting you in this mess. I didn't mean for that. wuxuu yiri waa ka xumahay inaan saan ku yeelo waa ka xumahay inaan xaaladan ku soo geliyo waa ka xumahay inaan ku xanuujiyo علشان work waa socdaa laakiin To happen. man rabin in dhacdo arintan For what to happen? aniga waa wareersanaa because ninkan hadda wuxuu ku celiyay maxaa ka sheegayo inay dhac waxa dheed inay dhacaan ma rabin oo qoftan ay ku xanuujisay oo ku xumaysay maxay tahay To play with your heart like that and put you in a situation where there's another woman. hey wuxuu yiri علشان waxaan ka xumaa علشان inaan qalbigaaga ku dhedheelo xaalad aan ku geliyo meel naag kale ay ku jirto علشان naag kale la socdo oo ma oosan sheegin marka si toos ah oo علشان saas hadalkiisa hadda waxaan ka dhiminaynaa ninkan uusan u sheegin laakiin ayada meelaha kale ka ogaad naagu ay ku isku qorqoreen And my love for you is still there. It's never like weakened. waxa ay leedahay jaceylkii weli علشان still there Soomaalida ugu fasir ma qaano علشان waxay ka wadaa weli علشان waa ku jeclahay oo aniga waxaas ay tiri naagta ay sheegtay علشان waxba iskama kii bedel It's never weakened in any type of way. It's just like the trust factor did, but that can be built. And so I'm asking you, I'm asking you if you would be willing to try to maybe work things out. ay asaga ninkii waxay ka codsanaysaa in ay isku daydo inuu isku dayo asaga inuu wax hagaajiyo oo wax dhiso maadaama xaaladan aysan hor u jirin ninkaana naagtan oosan u sheegin عشان إنا حالة تازمينه وحاول قفتاس كتقلص عمل قفتاس كون وينو أنا هذه واسفهمي كرنا ورقفتان كابل هذا I would honestly like to say yes. I would like to build that with you and وحول الدعاء هانتي أنا قاعد جعلها لها أصلا السنة ومتخنا هانا أنقله make it official. official سي official أنا عشان أنكوزو بندقو وعائلة متخنا قفتان وقال فرنتي ذا أوكلا سي official قفتي كلنا ومخلة And even though you have a girlfriend, جيري أنت سوبو وحكو يري مركا حتى أديكو girlfriend هستو مياد ربطا قفتها هنا سي official عشان أكديوت Honestly, yes. for how, from she's ها هو ده Back and forth, on and off. wuxuu yiri qoftaas hore علشان qoftaas kale waxaan horay gadaal maalo kale tagal isku soo noqonaa wax saasi ahayn علشان qoftaan uu rabaa marka warkiisa saas u wadaa okay. Well, let's bring her out. Let's bring her out again. Here's Alexis. abo gabadhii kale la soo wadaa sheekadan xanuun waay wala gabadhaas oo la socday gabadhii waa ay joogtaa kuma oosa dhin علشان dad kala go'ay oo kala go'ama markii ugu dambeysay waa isla socdeen cunuga jiro oo gabadhu ma taqaana kulleed oo loo korinay meesha publicadana wuxuu rabaa intuu dhaqaaqo qofta inuu raaco raaco ujeedkiisa hadda sidaas waay marka wixii dhacay arag qoftan waxay taagan tahay bas markii dagaal la soo gasho waxay taagan tahay علشان qof la dhacayo oo kale ninkii ma aadin buu waxay tiri adiga aan soo dhex galay camal taagan tahay waa war meesha dagaal ka socdo How I look stupid? Because you love my man, you never seen him before. Are you kidding? You can't talk. waa is dagaalay ninkeyga waxay tiri weligaa maadna arkin be waxaan oo dhan duumada inta ka soo dejiso maxaa tusidee taaganta aan ku soo celiyay Because you love my man, you never seen him before. Are you kidding? You can't talk. waa la is dagaalay feerka adduunka warshada xaraarad kaliya oo la feer oo legal jirabe waa la ogol yahay meesha saad tartiib loo kala qabanaya laakiin feerka waa la ogol yahay dagaalkii adduunka xogaa buuqa jiro marka buuqaas aan ma fasiri karo laakiin aan fiirin feerka meesha ku dhamaado
6 years la socday 7 months عشان waxuna ka dhuusa 7 months inuu yahay ciyaar xaafada tahay waa hadda garoomada soo gashay ninkii rabta bebe ina ku dhacday inaan wiliga arkin taagan You've been talking to me for 6 years, knowing he's cheating on us. adoo 6 sano la socday tiri oo wadano ku cheater kugu sameeyay caalashan naaw kugu dul wada maxaa tahay marka adiga ay leedahay qoftii kalan It's called him dad, bro, and he still cheats on you with different women, and you know this? soo waliba naag kala duwan soo rabeeyay adigana ogtaa caalashan waa la socotay laakiin ninkan caalashan qiimo ugu fadhin waa because ninka haduu soo naag la socdo naag kale oo shukal daaminas naagtaas caalashan ababa ano Let him come in your kid's life? So? What type of... Who does that? Nobody. Obviously, I be doing Texas, bro. Doing him. He's in Atlanta. Girl, I graduated this year. I could easily go. waxay tiri meeshaan Atlanta meeshaan asad deganahay annaka adiga online laga keenay magaalo kale degan tahay waa You graduate. You think you're an adult? waxay tiri markii anigu waa qalin jubiye caalashan magaalada oo soo guur kale isiri qoftaas waxa waa qof You oo graduate. Bro, I got scholarships to basketball and in cheer. I'm gonna make something out of my qoftan scholarship haysta qoftan qof future leh waay marka waxay tahay inta wax walba ka fargareys kara nolosha saar baa yeeli kara waa la isku fahmaya Are you any good? naagi isla waxa ku taqaana scholarship. I got a scholarship. I got a scholarship. waa la isku fahmaya Okay. Am I any good? What? What do you want to say to him? waxaan la yaabana ilaa had ninkii saas uu taagan yahay saas uu taagan yahay naagihiina waa isrif weeyaan ninkaas ma u dhacan miyaa ninkaas hooyadiisa soo duceysa oo maleynayo naagaas ku dilaan adigna saas u istaag waa ware aniga annaka wax isku dilaa ma arkine wallahi iyaarkan waxaa waaye wallahi iyaarkan khatar waaye aboo laba naag hadii isku dilaan waxaa hayda ilaahay og So you gonna try with her? I mean, You gonna try to work something out with her? qoftan waxay dhahaysaa hadaayo wuxuu yiri moogta wax la dhisi karnaa oo wixii hore iskiilo nolol asal dhisi karnaa ka is fahmi karnaa sidaas sameeyna miya sidaas wixii way maqleeday moogta qoftan hadana waa caddahay labada kale waa madow yihiin laakiin lahjada madowga ku hadlaayada so that means dabarkan hadaayo waa arkay shabada iyo tattoo iyo ugu qoran marka qoftan qof sahlan maaha waana dagaalamay marka qof waa iska caddaha ma qaabka madowga u dhaqantaa this is the person I've been wanting to meet since. Oh, me. qoftan ahayd qoftii aan muddo sugayo yiri inaan la kulmo One, honestly, Meet. and be with this person, honestly. When you gonna see? waxaan rabay qoftan inaan aniga aan qoftaas aan la wareego yiri calashan qoftaas aan waxaan sugayo qoftaas inaan isku qabsano taagan yahabano When you gonna see her? When I was gonna make time to see her. Oh, so you gonna make time to see her? sidee ku arkay tiri calashan waqti aan u sameeynayo yiri si aan u arko calashan dad isra waqti isku weynayaan ma Her, but you sit here. You say you wanna marry me. You wanna be with me. laakiin aniga waxa igu tiri waan ku guursanayaa adaan kula joogaa We've been together for 6 years. You wanna have a family with me? What 6 sanaan wada joognay family-na waa leenahay calashan cunuga iyada dhashay ku soo dhex diraysaa meesha have we been trying to do? That was said. What have we been trying to do? That That was was said. Okay, if you say something, you wuxuu yiri marka daawas intaas basi ahaayeen kaliya waxaan ku guursanaa waa wada joogaynaa wax kale ma aanan ku dhihin need to be truthful. It don't even be a lie. that's a good point maadaama aad qaratay in hadalkaas aad dhahday waxay ka aheedatay inaad ka dhabayso run ay ka ahaato si calshan nin rag runta inaad ka dhaqanto calshan been ii sheegtay ma ahan iska baashi But at the same time, when I met Dominique, she showed me something way different from you. qoftaas markaa la kulmay uu yiri wax adig ka duwan ay tusoo yiri saaxbaan ka dareem Text message. It wasn't just ma qoraal kaliya ay tahay qoraal miya adiga ii sheegay taaginta a text message. Phone call? Wasn't even a phone call. FaceTime. ma ahaan yiri text message waxay tiri telefoon ma ka soo ma telefoon ma waji live ma ku wada sheekaysateen mayo oo ku haya maxaa waxay ku tusiday soo wadaa marka u fahmay Not a FaceTime. Okay, then you have not seen her. What is she showing you? waxay tiri maba aan arki qofta markee maxaa waxa ay ku tusido qoftan ila ka wareegtay ka wada You have not seen Obviously, her. I'm showing him something better because you there. waa qofti waa kale inta wax adiga ka fiican aan tusiyay taagta ilaa waa sax dadku hadii online isku sheekaysteen waxay tusiday maxay tahay ninkan calashan feelingka jacayl in la dareemo qoftaas ka maqan waxay ma leedahay in kalaab la aado qamar la cabo meelaha gacmaha la isku dhawo sida gaalada calashan waxaas jacayl ay u taqaanaa laakiin meeshan sheeko ka weyn tahay
أبو قفتي كانوا حالي ديالك أدونك قفتي ولا قبت ولا دوك على الجري أدونك وحن هذا حوق اللهان قف اسكو تاج ما انت دوك هالودغ هدا انا هل فير هيك قفتان ولا دheer iyo xoogaa waa laakiin qofta qof mir waxa waaye dadka dagaalamo waaye maadaama la yiri wax adiga wax adi aadan haysan oo wax dheeraad ah haystaa waa aniga ku soo jiitay qoftii dagaal hor ka bilowdo ilaa hadda waxaa la yaabanaa igaarka soo meesha u taagan yahay gacmo saan isku haystaa waa daawaha dahe والله نكان ايه سو دعيسو وادي ما اسكو دغالايا Oh yeah, it is a problem. The problem is you, because obviously. Every day he wants me. I'm there. mar walbo asaga ii baan aniga meesha aan joogay dheeyda tan ma taqaan cad laakiin madow waxay ku heedaa laakiin anigu i rabaa tir asan wax kasto oo sameeyo skiilowa marxalada taagan laga hadla He don't want you, bro. He's just talking. He's not going nowhere. Oh, he's not. waxay tir ninkan waa iska hadlooyaa leemehe علشان مeel uma socdo tir ninkan been ku sheegaa waa No, he's not. Oh, okay, Trust me, he is not he going already nowhere. came before. He is not going nowhere. waxay tir hor markii hore waa علشان nin aan markii hore baan shukaansanay hadda inaan ka wato waxba agteeda kama ahana ka wadaa So you're saying you want to leave her? Honest. ninkaan ma ku su'aal wuxuu weydiiyay waxa aad tiri miya waa ka taga bas qoftaas wuxuu ku yiri qoftaas waa ka taga qofta laakiin ma og marka hadda la rabo inuu cadeeyo ninkaan Yeah. ha hu yiri ha Wow, what did I do? You Man, can't see me rush that. relationships instead of taking time and building. wuxuu yiri sababta waay maxaa iga tagay tiri wuxuu ku yiri jacaylka markasta rush gareysaayo waa qastaayo علشان meeshii laga rabay inaad dhisto oo slow علشان qof degan ma tihid waa ka wada Slow. You want to rush marriage. You want to rush a kid. We're nothing but 20-something years old. Together for 6 years since high xaalada markasta waa xumeeda meelaha wuxuuna geedaa meeshii school. tartiib u You dhisi went leeyahay everywhere with me. I'll walk to you. qoftan dagaalyahan waa horta daayan waa arka dhabarkana shabada ugu yaalo waxa waaye xogaa iska dhib badan tahay laakiin ninkan waa ay jecesha laakiin asaga qof wuxuu rabaa cool ah qof ay isfahmayaan qoftiina waa hela marka waxa waa meesha waa isku dhigeen To be with you. Are you serious? And there's nothing I can give you. Are you serious? gurigaagaan tagay tiri علشان kugu imaaday علشان wax kasta waa sameeyay maxaa wax aan ku sameyn karana ma lahan oo ileedahay waxaasan kaaga baahanahay aniga qoftu way nidi jabay taagantahay You love my kids, bro. You call my child your princess. You let her call you daddy. oh my goodness والله xanuun waaye waxay tiri caruurteeda waad jecleed waxaad ku dhihi jirtay princess aa tahay gabar waayaan u fahmay princess aa tahay waxay kaloo ku dhehaysa iyadana aabay ku dhahayd Are you serious? marka waxaasoo dhan ma arsan si fudud ma hadda maanta ma ku dhameynay gabadheedana saas waalid la'aan ku tahay oo aad adiga soo barbaarisay anigana saasaad igu dayday wallahi wadna jabay taagantahay You want to leave me for that? What gives you the right? What do you want to say to her? qoftan gacashay gashay waxa waaye qofka si xun hadduu wax xanuunsado dhib waaye laakiin ani maanta dhan ninkaan nin khatar waan dhahay gacmo is haystaa laakiin waxaan aad alshaan ugu dhaliilaa alshaan qof weligaa alshaan qofka haddaan nacdo int adoo naag kala keenin meesha marka hore iska soo jaraa yirahdo walaale noo kala wadi laakiin naag kale inta keentid naagtana kaa raaca adiga bye ayadana ay waxba ka ogeyn alshaan qalbijab aad ah waa marka nin raga ma aha ninka inta dumarka oo siiyo dumar kale ka raaco si life waliba ay ku isla joogo oo mataqaanaa nin raga ma aha ninkan because gabadhan saan ay yeesho maantay birina adigana qoftaas kale ku yeelay definitely maanta naagtan publica ugu oysiisay birina mid ku yeelay naagtan nac ma xumo laakiin si tartiib uga go si tartiib nolol kale u bilaabo laakiin sidaan ha sameeynin What I can say to you also is sorry for wasting your time. Forget you sorry, bro. sax wallahi bilaa wuxuu yiri waa ka xumahay maadaama waqtigii aan ka lumi fiiri marba nin hadduu ku naco sorry meesha ma soconayso iskii loo tiri sorryda waxa sheegaysa
Are you worried that seeing what he would do to her after 6 years that he's going to turn around at some point and do that to you? That's a good point. حتى كهلا مقولتها اللي يري لحسن ما دام قفتها لحسن كبعد أدينا سيدا سكرة إنه كوجو ما ينكروا فاهم هذي that's good point because waxa markay istasamaystaa what goes around comes around ali. I mean, it is a concern. That's what I'm saying. Like, before me and him even like say we're together again, it's gonna take. Like I said, my love didn't go nowhere, but my trust did. So like, before we get together, I would like to just take it slow at first and just be friends at first. You know, just work towards it. But ta marka waxay dadkina kala dhacsarabtaa calashaan wiilkaas kale gabadha kale xiriirkoodii bilowgoodii hore noolama sheegin ilaa hadda say isku barteen arse xaaladoodii hore laakiin qoftan waxa ay leedahay kalsooni ahaan ay u sheegay ana asaga koob markaas baranaynay arse saaxiibtino friends caadi aan noqonay meeshaan ka soo dhisnay kabacdina jaceelka saas uu ku imaaday marka dadku hadday hoos iska soo fahmaan geedka hoos mataqaana laga soo dhiso kabacdi waxa gadaal ma ka halaabayo marka waxaan u fahmay ayaka noloshoodii hore dadka markay qob qacay ahayd maadaama cunug ay haysato ninkan uusan dhalin taas micnaheedu ma ahan dad mataqaanaa sideena oo kale asan warkan guud ahaan aan kaga sheekeynaa mogta marka qoftan aan isaas ugu duwanay taageenta ninkan rasmi u sameeyay oo kale mustaqbalka. If I know that me and him is going to talk and possibly be together again, then there doesn't need to be another person. Like, And you want to be with her? I want to be without me. wali ninka marka lagu celiyo waxa la qoftaas Facebook inaan raacada ma diyaarto qoftaas aad mataqaana la go'do qofta aad ku cunto ha hooyo gabadhan wajigeeda ma fiiri kari walaa qalbi jab. She's a kid, bro. You're 22. خلصي علاش يا حبيبي جيني سوي عسوا جرتو وحاسوا جرتو قفتها عرر واي كلها waxaan sir ninkan oday ma noqon doona 22 sano jirtaa iska soo jirta arshan ninkan 22 jiro ayadana waa kaas yarta adiga 18 meelahaas waa faan waa ka weyntii kala martaa marka waa hal iska macna daraa. You've been with me. We've been together for this entire time. But we had points where we were on and off. waxay tiri ana adiga weligiin saas isku daba taagneen bas sidee alashan way aamin lahaa gabadhan ninkan inuu ka tagay ama uu naagtaas ka raacay laakiin wuxuu yiri sidaas ay tahay inta wada soconane on and off ahayno marna waa isku imaanayna marna waa kala tagayna dad oo love for serious oo ay saas ma aanan ahayn aan point ino noqon karaa taas. That was because of you. Because you wanted to dump me to go be with some other girl. abo marka maadaama asaga uu yiri aan adiga on and off ahaan oo mar waa soo taas waxa u sabaheed tir adiga maadaama aad adiga mataqaana igu sameynaysa naaga kale inaad igu dul shukaansato ama naaga kale inaad raacdo taas darteeda calasan ayada ay baxna mar u dheeday marna ay ku heshiinayaan marka problemka asoo ka socdo marka mar kasta ninkan oo problem ka socda Every time I didn't do nothing but love you and cherish. mar kasta wax aan sameynaa saas asoo sameynaa haddana waa ay la joogtay kaliya waxay tiraan ku jeclaadamay wax kale ma aan sameynin. Every moment with you, even the ones we didn't even do nothing but sit and talk. The little things matter. wax kasta hatta marra qaar inta fadhiisana wada hal jirnay tir calashan hadal wax lagu qancin jiray waxaas yararka calashan muhiim ahayd calashan oo heartbreak qalbi jabaa ka dhahay. Just to look at you matters, bro. waxaan la yaabanahay gabadha kale waa ay fiirsanaysaa waxaasoo dhan ay dhegeysanay gabadha cabaadkeeda calaacalkeeda dhibaatadeeda dhegeysanay qalbi mala miya because dumar waaye beri ka mala ayada lagu samayn karaa. Just to smell you when I get a chance, bro. Give you a hug. When I hug you, there's nothing else there. I feel like I'm floating. Okay? marka habku siiyo wax kale inay jiraan maba aaminsanidii taagantahay aniga dhanba. You stand next to me. When you see my kids. qoftii kale oo kale nuucaysa marka ilmeyga iyo jeclaatidii iyo qoftan romantic kelmadaha caadi ah ka socdo qoftii kale waxaas waa dhibsanaysaa. Kids mean the world to me, and for you to hurt them now, what I'm supposed to tell them? ilmaha maxaan ku dhihi gabadhii waxay ku dhihi leedahay ilaa odaygii I always say, I don't know. We'll be back. ninkii wuxuu yiri I don't know isku soo jaray waa ilaa nin meel u cad waay mugt naga tagay tiri I don't know marba qof kasta ku dhaaji sawir nato ku arkaa mugt. markaas xaabay waa kaas barnaamijkeena jeeri halkaas uu eegyahay haddii aadan daawan qeybihii hore The Mauri Show
hoos aan idin dhigi doonaa ka daawo haddii barnaamijkan aad ka hesheenna like-ta saar waxaan arkaa فيديوهاش ugu horeeyay like in 500 iyo 1000 ay ka bilaabanayso laakiin ayaantan like ta hoos u soo socotaa marka videogan hadii 1000 like ay saartiin waxaan ka ballan qaadi doonaa barnaamijkan The Jerry in aan soo badi doono oo aan marna The Mauri soo geli doono marna Jerry oo aan isu ged wada doono howsha hool yar maaha laakiin dartiina u sameyn doonaa fadlan waxa kale sameeysiin aniga dadka i daawado marka aan YouTube-kayga aan gudaha ka fiiriyo dadka i daawado iyo dadka mataqana subscribe-ka i saaro 65% dadka i daawada subscribe ima saaraan كاسمعينيدا waxa ay ka dhigan tahay waa daawatiin subscribe na ma saartiin waad aragtiin videogeeni lixaad aan sameeyay kankii toddobaad waaye علشان waan dareemi karaa dadka qaar waan ku fahmi karaa waa iska mashquulsan tahay laakiin waa daawataay subscribe kana saar si markasta lagu wada socodsiiyo barnaamijka markuu soo dhaco markaas xaabi waa kaas waran ku daalmay waxaan kaga tagay sidaas iyo mac salaama peace